daawade ma kula tahay furahan yar ee hortaada ka muuqda in uu awood u lahaa in uu badbaadiyo markabkii weynaa ee Titanic una baajiyo dhimashada 1522 qof. Haddaba barnaamijkeenan ayaynu kaga hadli doonaa xog kooban oo ku saabsan furahan. Kusoo dhawaada kanaalkeena Dhacdo Side. markabkii caanka ahaa ee Titanic ee Ingiriiska laga lahaa xilligiisina ahaa markab rakaab qaada midka caalamka ugu weyn ayaa 10kii Abriil 1922 safarkiisii ugu horeeyay uguna dambeeyay kaga soo shiraaqday wadanka Ingiriiska isagoo ku sii jeeday cariga Mareykanka. Haddaba waqti yar uun ka hor intii aanu markabku dhaqaaqin ayaa la casilay kabtankii labaad ee markabka oo la oran jiray David Player. David waxa uu ka cadhooday casilaadan lagu sameeyay isagoo xanaaq la jiq ah ayuu degdeg uga rooray goobtii. waxaase uu ilaaway in uu alaabadii uu wareejinayay ku daro furaha khasnadaha ay ku jiraan diiradaha markabku. muu xasuusan mana ay dhaadin mas'uuliyiintii xilka kala wareegaysay. haddaba maalintii ay bisha Abriil ahayd 14 ee sanadii 1922 markabkuna uu sii waday safarkiisii uu labada dal iskaga dhex gooshayay ayaa waxa markabka soo gaadhay digniino fara badan oo loogu sheegayo in dhinaca waqooyi ee badda Atlantika ay leedahay buuro waaweyn oo baraf ah. digniinahan oo ay iska indhatireen kooxdii isgaarsiinta markabka u qaabilsaneyd. isla maalinnimadan habeenkeedii kolkii ay saacadu ahayd 11:40 ayaa nin la oran jiray Frederick Fleet uu arkay buur baraf ah oo markabku uu in yar u jiro, waxaana uu si dhaqso ah u garaacay jeliskii digniinta. mas'uuliyiintii markabku waxa ay isku dayeen itaalbaaska in ay bedelaan jihada uu markabku u socdo, balse waxa ay isku dayga sameeyeen goor ay fandhaal iyo dhiili kala dhaceen. waxaana habeenkaas ku habsatay musiibadii ay ku leedeen rakaab gaadhaya 1522 qof. Frederick Fleet oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee buurtaas arka sidoo kalena shilkaas ka soo badbaaday waxa uu sheegay haddii ay haysan lahaayeen furahaas in uu markabku badbaadi lahaa, sababtoo oo ah meel fog ayay uga muuqan lahayd ama ay ka arki lahaayeen buurtii barafka ahayd ee markabka galaafatay. sidoo kalena mas'uuliyiin Amerikaan ah oo iyana dhacdadan u dhabagalay waxa ay xaqiijiyeen suurtagalnimada ah in uu markabku badbaadi lahaa haddii ay haysan lahaayeen diiradahan loogu talagalay bidhaaminta aagaga fofog ee uu markabku ku aadan yahay. haddaba ninkii furahan isku ilaaway ee David furahan waa uu ilaaliyay, waxaana uu u dhiibay gabadh uu dhalay taas oo iyana 80-yadii ku wareejisay dowladda Ingiriiska. waxaana sanadkii 2007 lagu iibiyay furahan lacag dhan $210,000 oo dollarka Mareykanka ah.